wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool ayaa maanta daahfurtay manhajka madaarista quraanka kariimka ah waxaana xafladii lagu daahfurayay manhajkaasi goobjoog ah isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood culimaadudiin maamulayaasha madaarista quraanka ee gobolka iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyay manhajkan isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Sool Cabdilaahi Maxamuud Axmed manhajkan waxa soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda Soomaaliland manhajku wuxuu ka kooban yahay afar maado waa maadada higaada ah وبوق اللي يراه التبيان ولا مجلدود أما لبا قيبود ونيتو منهجكو ومنهج رنتي آدو قيم كلي أنو آد بانو ودا آخرية معلمين تنا إنفر بدن وكمدي ويلا أركان مادة سي وهجادة مادة كوبادي مادة لبعضنا وتجويدك أو إسنا لبا مجلدود مادة صدحادنا وتفسيرك مادة أفرادنا وتربية رنانتي ومنهج آت وناكسن لربو إن مدارستا قبل كالصول أردن أي دقن قليان ومنهجك حنفرينا مدارستو إني منهجك إيبسدان وأرضيدا أردقان ولا دقن قليو waxaa kale oo jiri doonta iyana insha Allah xaflad ama seminar loo qaban doono macallimiinta madaarista quraanka insha Allah aan qaban doono iyo muadiniinta iyo imaamiyada ay wasaaraddu qaban doonto ayaa jiri doona insha Allah kaana waan idin soo socodsiineynaa maamulayaasha madaarista quraanka ee magaalada Laascaanood iyo qaar ka mid ah marti sharaftii ayaa soo dhaweeyay manhajkan iyagoona sheegay in si weyn loogu baahnaa hadii adigu wixii aad baahi u qabtay laga soo qabtiray oo lagu keenay waxa weey la shukri cala waajib weey adiga laga rabaa macallin inaad waxa weey la timaado maadaama macallimiinta aynu nahay oo anigu aanad ka baxsanayn in ardaydii waxa weey higaada laga soo dhiso ilmihi yara hadii kale weligood quraanka qofkii waxa weey ku soo salaaxi maayo uga mahad celinayna arintaas yaani waxa weey isku duwaha gobolka awqaafta u qaabilsan oo xaqiiq ahaan marka loo hadlo dadaal weyn sameeyay leeyahay buugan markaan akhriyay si aan aad ugu farxay kulay runtii anigu qaabka uu qoran yahay iyo sida tusaalayaashiisu u badan yihiin wasaaradda iyo culimada diyaarisay halkan ku qoran dhamaantood waxaan leenahay jazaakumullahu khayran marka labaad waxaan u mahad celinayaa Sheekh Cabdilaahi Maxamuud Axmed Yaasiin iyo wasaaradda awqaafta oo runtii muujiyay karti iyo maaragtay dadaal iyo waxqabad ay u qabaan maaragtay waxbarashada maaragtay quraanka kariimka iyo arrimaha diinta waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ka horta aynu hayno maanta ee horteena yaala waxa loogu talagalay ardayda hadda bilowga ah ardayda quraanka dhameystay ama bartanka maraysa ama sii socota looguma talagelin maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale ayaa bogaadiyay shaqada dardarta leh ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland ka wado degmada Laascaanood iyo gobolka Soolba waa gobolkii wax la marka la iswarsanayo waa gobolkii diinta hooyga u ahaa marka waxaan sameeynaa dib u habayn waxaan u mahadnaqayaa isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Sool oo nin dhalinyaro runtii intuu xilkan qabtayna hawlo badan ka qayb qaatay oo xagga diinta ku saabsan iyo wasaaraddiisa iyo kuwa ku saabsan waqtigii xanuunkii loo jiray corona uu deegaankan ka dhacay marka isuduwaha waxaan leeyahay waan ku hambalyeynaa dadaalkaagana halka ka sii wad wasaaradda diinta iyo awqaafta hormuudka wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil oo ugu hambalyeynaya waxaan leenahay hawsha ka sii wada gobolkii diinteenu nahay anu gobol waxa ka sheegay halkani muxuu ahaa dhulka Soomaaliya degto dhan inay tahay meesha ugu cilmiga badan gobol baa ka sheegayo qaar ugu murmay qaar qaatay way jiraan ibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood